Asalaamu calaykum kusoo dhawaa muuqaal cusub. Muuqaalkan oo maanta uga hadli doono sportska maxaa ka cusub, waxyaabaha sportska ugu weyn. Waxyaabaha aad maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka ciyaaraha. Tababare Mikel Arteta oo sheegay inuu dhisi doono koox adag oo kooxdaas oo kusoo celin doono qaab ciyaareedkii adkaa ee hore. Ciyaaryahan Mesut Ozil dhanka kale, tababare Frank Lampard ayaa sheegay waa kuma ciyaaryahanka aan la barbar dhigo Didier Drogba. Wax ka ogaataa geesta kale, ciyaaryahan Mina oo tababarkii shalay markii ugu horeysay tababarka Liverpool soo galay, maxaa ka dhacay meesha, iyo 10kii sano ee ugu dambeeyay labada ciyaartooy ee dunida xukumayay maxaa ka taqaanaa, iyo 5 waxyaabood. Mar kale kusoo dhawaa barnaamijkeena ciyaaraha oo faahfaahsan. Balse markaan sheeko dheer, tababaraha caanka ah Mikel Arteta ayaa sheegay ciyaaryahanka caanka ah ee Mesut Ozil inuu kusoo celin doono qaab ciyaareedkiisii hore. Waxa uuna doonayaa inuu dhiso koox adag oo ka caawisa Mesut Ozil inuu si fiican u ciyaaro. Tababare Mikel Arteta ayaa sheegay inuu ciyaaryahan Mesut Ozil weligiisba uu aaminsanaan jiray, maxaa yeelay Mesut Ozil ayaa ahaa xiddiga markuu Arsenal yimid ilaa iyo hadda ugu kubad abuurista badan, balse waxaa mar xun u noqotay markii loo dhiibay shaqada tababare Unai Emery oo booskiisa joogsada ka xaqiray ciyaaryahanka reer Jarmalka ee Mesut Ozil, taas oo sababtay inay xulka qarankiisa xataa dhibaato kala kulmo, maxaa yeelay waxa ay ku heleen xulka qaranka Jarmalka wareegga guruubyada koobka adduunyada ee 2018. Dadka halyeeyada reer Jarmalka iyo madaxda siyaasadda ayaa cunsurinimo kula kaceen xilli uu Mesut Ozil uu taasi ku kaliftay inuu iskaga fadhiisto xulka qaranka Jarmalka. Mesut Ozil ayaa ku sheegay afkiisa in xulka qaranka Jarmalka ciyaartooydiisa iyo dad kale ee qolka labiska xulka ay kula kacaan cunsurinimo, hadallo cunsurinimo ah. Qorayaasha qaar ayaa sheegaya in Mesut Ozil lagala noqon doono dhalashada xulka wadanka Jarmalka, maxaa yeelay Mesut Ozil waxa uu kasoo jeedaa wadanka Turkiga. Geesta kale, maxaa kala socotaa xiddigii uu Frank Lampard ku tilmaamay halyeeyigii hore ee Chelsea, ciyaaryahan Didier Drogba. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa sheegay xiddiga caanka ah ee Lyon u dheela ee Moussa Dembele inuu halyeeyigii hore ee Chelsea u qalmo Didier Drogba. Frank Lampard ayaa sheegay geesta kale inuu doonayo weeraryahankan sababtoo ah maxaa yeelay ciyaaryahan Tammy Abraham oo kaliya ayaan hadda haystaa, balse ciyaartooyda caanka ah ee Giroud iyo Batshuayi oo qaab ciyaareed fiican haysanin ayaa doonaya inay iskaga hayaamaan, ayuu yiri tababare Frank Lampard. Sky Sports ayaa soo warisay ciyaartooyda kale ah Michy Batshuayi iyo Olivier Giroud inay ku qanacsaneen ayna afkooda ku dhaheen waan ka tagi doonaa kooxda kubadda cagta Chelsea. Frank Lampard ayaa bedelka labada ciyaartooy isha ku hayo ciyaaryahanka caanka ah Moussa Dembele oo qaab ciyaareed fiican ku hayay sanadihii lasoo dhaafay kooxda kubadda cagta Lyon. Tababare Frank Lampard ayaa sheegay inuu yahay midka kaliya ee bedeli doona halyeeyigii hore ee Chelsea, Didier Drogba. Chelsea ayaa loo fasaxay suuqa kala iibsiga sanadkan 2020 xilli uu sanadkii hore dhibaato weeraryahan la'aan haysay. Kooxda kubadda cagta Chelsea ay xiriirka UEFA ka ganaaxeen suuqa kala iibsiga. Chelsea oo hadda loo furay ayaa sheegaya tababare Frank Lampard inuu doonayo inuu soo iibsado ciyaartooy dhowr ah ay ku jiraan Jadon Sancho, Moussa Dembele iyo dhowr ciyaartooy oo Sergio Milinkovic-Savic oo ku jiro. Geesta kale, ciyaaryahan Takuma Mina ayaa shalay gaaray xerada tababarka ee kooxda kubadda cagta Liverpool. Ciyaartooyda Liverpool oo dhan Jurgen Klopp iyo tababare Jurgen Klopp iyo ciyaaryahanka Sadio Mane, Xherdan Shaqiri iyo Mohamed Salah, ciyaartooy badan ayaa aad ugu farxeen xilli uu shalay soo gaaray xerada tababarka ee Milton ee Liverpool ku tababarato. Ciyaaryahanka caanka ah ee reer Japan Takuma Mina ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu imaado Milton xilli uu doonayo inuu qaab ciyaareed adag kusoo bandhigo garoomada caanka ah ee Premier League iyo kuwa caalamka.
Takuma Minamino ayaa ciyaari doona kulankiisii ugu horeysa hadda soo aadan ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta Everton wareegga saddexaad ee FA Cup-ka. Liverpool ayaa kusoo iibsatay ciyaaryahanka caanka Takuma Minamino 7.25 milyan ay kaga soo iibsatay kooxda Salzburg oo ka dhasha Austria. Takuma Minamino ayaa wacdaro adag ku dhigay kooxda kubadda cagta Liverpool xilli uu la ciyaarayay wareegga guruubyada ee Champions League, balse hadda Salzburg oo kusoo hirtay wareegga guruubyada Champions League waxa uu u yimid kooxda kubadda cagta Liverpool, balse sharciga Champions League oo la bedelay ayaa waxay ka dhigaysaa inuu Takuma Minamino uu ciyaari doono Champions League. Geesta kale, Sadio Mane ayaa markii uu la kulmay Takuma Minamino ayaa uu sheegay inuu mar hore sii sugayay Takuma Minamino oo xiddig reer Jabaanees ah. Aad ayaan ku taageeraa ciyaarahaaga, aad ayaan u fiirsadaa. Mar kale waxaa la kulmay ciyaaryahan Xherdan Shaqiri oo leh Takuma Minamino caafimaad fiican ayaa kuu rajeynaya, maxaa yeelay kusoo dhawaaw Happy New Year-ka, welcome xerada tababarka ee Liverpool. Takuma Minamino ayaa gudaha u galay meesha caafimaadka oo lagu daaweynayay xiddiga dhowr oo ka mid yahay Alexis Oxlade-Chamberlain. Isla markiina waa uu salaamay oo uuna la yaabay dhaawacyada soo gaaray. Geesta kale, Takuma Minamino ayaa usii gudbay xerada tababarka, waxa uuna la yaabay fanaanadiisii oo halkaas suran ayuu sawiro ka qaaday. Takuma Minamino markii la wareystay ayuu sheegay inuu ku faraxsan yahay gegada Anfield uu soo gaaray. Geesta kale, Takuma Minamino ayaa tababare Jurgen Klopp uu sheegay inuu yahay xiddig aad iyo aad u fiican, balse uu la qabsan doono Liverpool. Waxaan rajeynayaa inuu la qabsan doono Takuma Minamino qaab ciyaareedka adag ee kooxda kubadda cagta Liverpool, ayuu sheegay tababare Jurgen Klopp. Waxay dadka dhan isweydiinayaan maxay dadku ugu duwan yihiin ciyaartooyda caanka ah Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi. Shabakadda caanka ah ee Goal24.com ayaa sheegtay inay Messi iyo Ronaldo ku faanayaan waxyaabo badan oo kala ah inuu Messi haysto 10kii sano lasoo dhaafay 23 koob, halka uu Ronaldona haysto 20 koob. Ma jiro ciyaartooy ka dheela caalamka 10kii sano ee lasoo dhaafay oo ku guuleystay koobabka, halka ay Messi iyo Ronaldo abaalmarinada koobabka uu ku badan yahay ciyaaryahanka caanka ah kabtanka Barcelona Lionel Messi. Dhinaca kale, abaalmarinaha haddaan u gudubno, waxa uu haystaa abaalmarin gaaraysa 26 abaalmarin ciyaaryahanka caanka ah ee Barcelona Lionel Messi, halka 24 abaalmarin uu haysto ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Ma jiro ciyaartooy ka dheelo qaaradda Yurub ama adduunka oo haysto abaalmarin intaa gaaraysa 2010 ilaa 2020. Geesta kale, ciyaaryahanka caanka ah ee Lionel Messi ayaa weli kusii badan hogaaminta dhanka abaalmarinaha caalamka 10kii sano ee lasoo dhaafay, halka goolasha qaybta saddexaad goolasha waxa uu haystaa Messi 579 gool 10kii sano ee lasoo dhaafay, halka Cristiano Ronaldo oo haysto 554 gool, waxa uuna dheeryahay 25 gool. Ciyaaryahan Messi ayaa 25 gool dheer oo ah kabtanka Barcelona. Waxaan wada ognahay Messi inuu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or. Taas ayay sababta ay tahay dad inay xukumaan adduunka 10kii sano ee lasoo dhaafay ciyaaryahan oo intaas haysta inuusan jirin. Halkaan waxaan kusoo gabagabeyn doonaa barnaamijkii aan uga hadlaynay maxaa ka cusub ciyaaraha maanta.